Filimku wuxuu ku bilaabanayaa magaalada Nagpur ee dalka Hindiya, waxaana aragnaa nolol maalmeedka dadka ku nool xaafadaha isku raranta ah ee magaalada. Sheekada filimka waxay ka bilaabatay Tom oo ku nool xaafadda ugu liidata magaalada. Wuxuu maalmihiisa la qaatay asxaabtiisa isaga la midka ah oo ku sugan xaalad aad u xun. Waxaan aragnaa Don oo ka baxaya gurigiisa sida ugu dhaqsiyaha badan si uu la kulmo asxaabtiisa oo ay wada raacaan mootooyin, waxayna ku soo wareegaan magaalada oo dhan. Waxaan ogaanay inay dhacaan dadka oo ay ka qaataan moobilada iyo dahabka, oo waa tuugo dhowr saacadood kadib. Waxaan aragnaa iyagoo cunaya xoogaa cunto ah. Guri agtooda ah ayaa waxaa ka bilowday dood famil. Ninkii ayaa ku xanaaqay xaaskiisa Riza iyo carruurteeda. Riza ayaa go'aansatay inay isaga tagto guriga. Ninkeeda kamuusan yeelin oo wuu soo daba kacay. Don ayaa kala dhex galay oo wuu ka celiyay. Maalintii xigtay, Don ayaa la dagaalamay nin waddada marayay. Ninkii ayaa Don bursaday, waxayna si lama filaan ah isugu dhaceen Vijay oo ah nin aad u dheer, watan ookiyaalo. Wuxuu dejiyay xaaladda, wuxuuna Don ka waaniyay habdhaqankiisa. Don iyo ninkii ayaa kala tegay. Waxaan ogaanay in Vijay uu yahay tababare kubadda cagta ah, mar dhowna uu ka fadhiisan rabo. Maadaama uu duqoobay, qof kasta oo ku xeeran wuxuu doonayaa inuu ogaado goorta uu ugu dambeyntii go'aansan doono inuu ka fadhiisto isboortiska. Balse Vijay weli ma hubo go'aankiisa. Wuxuu aaday tababarka, wuxuuna ogaaday in lagu beddeli doono macallin da'yar. Inta ka horeysa, waxaan aragnaa sida arxan darrada ah ay ku nool yihiin Tom iyo dadka ku nool xaafadaha isku raranta ah. Wiilashii ayaa isku dayaya inay iibiyaan taleefannadii ay soo dhaceen, waxaana laga siiyaa qiimaha ugu yar, kaasoo ku filan nolol maalmeedkooda. Lama filaan, roob ayaa bilowday. Vijay iyo saaxiibadiis ayaa ku ciyaaraya caaga saddexlaha maadaama aysan haysan kubad. Nasiib wanaag, xaafaddooda waxaa soo booqday Vijay, wuxuuna arkay sida quruxda badan ay u ciyaarayaan wiilasha. Wuu ka xumaaday xaaladooda, wuxuuna go'aansaday inuu caawiyo oo uu keeno banooni. Maalintii xigtay, Vijay ayaa imaaday xaafaddii, isaga oo raba inuu siiyo banooniga. Dom iyo kooxdiisa ayaa dagaal fool xun dhex maray, waxaana dhibaato kala kulmeen booliiska, balse taasi waa dhaqdhaqaaq joogto ah oo ka jira xaafadda. Vijay ayaa maalin kadib soo laabtay, wuxuuna Dom iyo saaxiibadiisa u soo bandhigay lacag haddii ay kubadda ciyaaraan. Marka hore ma rumaysan isaga, laakiin way ka aqbaleen dalabkiisa. Dom iyo kooxdiisa ayaa ciyaaray kubadda. Vijay ayaa bixiyay lacagta, waxayna ku heshiiyeen inay sidaas oo kale sameeyaan berrito. Dom wuxuu aad ula yaabay odayga maadaama uu lacag siiyay, wuxuuna u maleeyay in Vijay uu waalan yahay. Maalintii xigtay, Don iyo asxaabtiis ayaa mar kale ka hor yimid booliiska, laakiin markaan waa laba askari oo keliya. Markaan Dom ayaa ku ciyaaraya askartii oo muusan ka cabsan. Wuxuu isku malayaa inuu yahay ninka ugu muhiimsan magaalada, laakiin xaqiiqdii wuu cabsanayaa. Galabtii, Vijay ayaa soo laabtay. Wuxuu dejiyay xeerar ama shuruucyo. Wuxuu gool ka sameeyay 2 dhagax, wuxuuna ciyaartoyda u kala qaybiyay 2 koox. Wuxuu baray anshaxa iyo shuruudaha kubadda. Vijay ayaa ku qancay ciyaartooda, wuxuuna siiyay lacag badan. Maalintii xigtay, carruurtii ayaa dagaalamay. Vijay ayaa kala qabtay. Way adag tahay in la tababaro carruurtan maadaama aysan aqoon anshaxa ciyaarta. Tababarayaasha kale ayaa aaminsan in Vijay uu waqtiga iska luminayo. Vijay ma jecla sidii ay u xukminayaan tababarayaasha kale, maadaama uu u maleynayo in Don iyo kooxdiisa ay yihiin kuwo tayo leh, ayna kaliya u baahan yihiin fursad. Dhowr maalmood kadib, Vijay ayaa go'aansaday inuu wax mishaar ah siin ciyaartoyda. Gurigiisa ayuu joogay. Marka uu imaan waayay, Don iyo xulafadiisa ayaa imaaday guriga, waxayna ka dalbadeen inuu lacag siiyo, balse Vijay ayaa qirtay inuu wax lacag ah uusan haysan. Kadib markii uu fikiray, Don ayaa sheegay inuu lacagta iska iloobo oo kaliya uu siiyo kubadda. Vijay ayaa si farxad leh uga aqbalay codsiga, wuxuuna ogaaday inay jeclaadeen ciyaarista kubadda oo aysan lacag bis rabin. Vijay ayaa ogaaday in wiilasha ciyaartooda wanaagsan tahay oo ay si qurux badan u ciyaarayaan. Wuu isugu wacay, wuxuuna u sheegay inuu u bilamiyay kooxdiisa ka dhisan kollejka. Vijay ayaa soo jeediyay in kooxda isku raranta ah ay kulan saaxiibtinimo la ciyaari doonaan kooxda kale, balse ay u baahan yihiin inay tababar qaataan maalmaha soo socda. Kooxda isku raranta ayaa si adag u tababaranaysa, iyadoo uu isha ku hayo Vijay oo khibrad badan u leh kubadda cagta. Wuxuu tusay qaabka loo sameeyo jimicsiyo badan si ay ciyaartooda u wanaagsanaato una qurux badnaato. Vijay waa inuu baro sharciyo aasaasi ah. Sidoo kale, Don waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, balse wuxuu u baahan yahay inuu barto goorta uu kubadda u baasayo kuwa kale. Sidoo kale, mid ka mid ah ciyaartoyda lagu magacaabo Babu ayaa inta badan kubadda ku qabta gacanta. Vijay ayaa ku khasban inuu si faahfaahsan ugu sharxo ciyaarta kubadda cagta. Waxaa la gaaray maalintii ciyaarta. Dhammaan dadka xaafadda isku raranta aad ay u faraxsan yihiin. Vijay ayaa isku dayay inuu la hadlo maamulaha dugsiga oo aan jeclayn dadka noocan ah. Nasiib wanaag, Vijay waxaa u suurta gashay inuu qanciyo, maadaama ay tani tahay hadiyadiisii howlgabnimada oo uu si dhab ah u aaminsan yahay dadkan. Waxaa imaaday ciyaartoyda, waxay soo wada qaateen labis qurux badan iyo muraayado cadceedda ah.
Dom wuxuu diiradda saarayaa gabdhaha koleejka siduu u soo jiidan lahaa. Ciyaartii ayaa ka bilaabatay. Kooxda koleejka aad ay u wanaagsan tahay. Waxaanu aragnaa kooxda isku raranka ah oo si dirqi ah u abaabulan, way isdagaalayaan. Don wuxuu aad ugu fogaan yahay gabdhaha. Marka ciyaartu soo gaadhay waqtiga nasashada, Vijay wuu ka niyad jabay ciyaartoydiisa oo wuxuu u sheegay inay leeyihiin xirfado run ah, laakiin ay iska luminayaan fursadda. Kooxda koleejka ayaa aaminsan inay kooxdan aad u xun tahay, waxayna caddeynayaan inay sax yihiin. Ayaa carooday wuuna ka tagay. Don wuxuu go'aansaday inuu xakameeyo kooxda isku raranta ah. Kooxdii way isku xiran tahay, waxayna iska siibeen muraayadaha iyo labiskoodii nacasnimada ahaa, waxayna go'aansadeen inay u ciyaaraan si aan horey loo arag. Ciyaartii gebi ahaanba way isbedeshay. Kooxda isku raranta ayaa bilaawday inay dib u soo laabtaan. Runtii waa cajiib, waxayna bilaabeen inay dhaliyaan dhowr gool. Mid ka mid ah gabdhaha koleejka ayaa si qaas ah u fiirisay Dom. Way ka heshay wayna xiiseynaysaa. Sidoo kale waxaa jira dad aad u badan oo ka socda xaafadda isku raranka, kuwaasoo aad ugu faraxsan kooxdooda. Ciyaarta ayaa sii xoogaysatay, iyadoo kooxda isku raranka ahi ay soo bareejiyeen ciyaarta. Kooxda koleejka aad ay u niyad-jabsan yihiin, wayna aamini la'yihiin in kooxdooda laga awood badan yahay, ayna dhibaato ku jirto. Dom wuxuu helay fursad cajiib ah, wuxuu wada maray ciyaartoydii dhammeed ee kooxda kale, wuxuuna ka dhaliyay gool si uu u bareejiyo ciyaarta. Waxaa la aaday rigoore ama goolkulaad, waxaana badisay kooxda isku raranka ah. Qof waliba ayaa bilaabay dabaaldeg aad u weyn. Vijay wuu ku faanayaa kooxdiisa. Markay ciyaarta dhammaatay, wuxuu dhammaan ugu yeeray ciyaartoyda gurigiisa si uu wax badan uga ogaado noloshooda. Dhammaan ciyaartoyda waxay soo mareen dhibaatooyin badan. Qaarkood ayaa waayay waalidkooda, qaar ayaa noqday kuwo daroogada isticmaala, mana haystaan waxay cunaan. Sheekaba mid bay ka darneyd. Vijay wuxuu rabaa inuu wada maqlo carruurta oo dhan. Markii la gaaray Don, wuxuu yidhi ma ihi qof qaas ah. Vijay wuu dhageystay sheekooyinkii oo dhammaa, sidaa darteed wuxuu hadda si gaar ah u doonayaa inuu sii wado caawinta carruurtan. Waxaa jira dhibaatooyin la xiriira goobta tababarka, sababtoo ah ganacsade weyn ayaa si sharci darro ah uga dhisanaya dukaan garoonka. Kooxda isku raranka ayaa weynaysa meel ay ku tababartaan. Vijay ayaa kala dhex galay, wuxuuna soo watay familada isku raranka ah, waxaana garoon qurxan loo dhisay ciyaartoydii. Vijay ayaa sii waday tababaridda carruurta, sidoo kale wuxuu sii wadaa inuu siiyo casharro nololeed oo xikmad leh, kuwaasoo ka mid ah casharrada ugu muhiimsan nolosha. Ciyaartoydiisa ayuu u sheegay inuu halganka u yahay qayb nolosha ka mid ah, ayna dusha sare ka duulaan. Arrintan ayaa socotay muddo dheer, balse maalin maalmaha ka mid ah waxay maqleen arrin naxdin leh. Mid ka mid ah ciyaartoyda ayaa dhintay isagoo ka shaqaynaya tareenka dhuxusha, magaciisana waxaa la oran jiray Yogesh. Waxa uu dhintay isagoo ka shaqaynaya shaqo halis ah. Vijay wuxuu soo xasuustay sidii Yogesh uga hadlay aabihiisa oo maqan, iyo rabitaanka uu hayay inuu quudiyo familkiisa. Dhammaan dadka xaafadda ayaa aas u sameeyay Yogesh, waxayna macsalaamiyeen saaxiibkood. Vijay ayaa ka fadhiistay ciyaaraha. Xaflad ayaa loo qabtay, balse kuma qanacsan inuu ka fadhiisto ciyaaraha. Dom ayaa dhibaato ku jira. Ninkii lacagta ku lahaa ayaa yimid, wayna dileen, balse wuu ka soo cararay. Waxaa ceersanayay niman badan. Vijay ayaa xal keenay. Mid ka mid ah ciyaartoydiisii ayaa sheegay inay ka qayb galaan tartan. Vijay ayaa la hadlay maamulaha iskuulka iyo rag kale, wuxuuna u sheegay inay arrintan muhiim tahay. Vijay ayaa ogaaday dhibaatada haysata Dom, wuxuuna baray cashar yar, wuxuuna ku amray inuu soo gabagabeeyo dhaqamada xun. Wax yar kadib, markii uu tartanka si rasmi ah u bilaabmay, qof kasta runtii aad ayuu u faraxsan yahay. Dhammaan dadka magaalada oo dhan ayaa ka soo qayb galaya. Qof kasta wuxuu u mahadcelinayaa macallin Vijay oo tartanka suurtageliyay. Waxaan aragnaa nin rabay inuu isdilo, laakiin dib ugu noqday ugu dambeyntii. Wuxuu maqlay tartanka, wuxuuna ku soo biiray kooxda. Waxaa tartanka ku jiray kooxo badan, sidaas darteed waxaa la filayay in qofkan uu kici doono qalalaaso. Wax yar kadib, garoonka waxaa ka buuxsamay qashin. Tartankii ayaa burburi rabo. Maamulaha ayaa Vijay u sheegay in tani ay ahayd mid lagu guuldaraystay maadaama dadka isku raranka ah aan la maamuli karin. Isla habeenkaas, kooxda isku raranka oo isku duuban waxay nadiifiyeen dhammaan garoonka qashinka yaalay. Maalintii xigtay, tartanku wuu sii socday sida balanta ahayd, waana dabaaldeg weyn. Kadib tartankii, Vijay wuxuu caawin ka helay wiilkiisa oo wuxuu maalgeliyay kooxda, wuxuuna caawiyay dadkii degnaa xaafadaha isku raranka. Vijay aad ayuu u walacsan yahay, balse wuxuu aaminay wiilkiisa. Dhanka kale, Dom mar kale ayaa dhibaato soo food saartay, balse wuxuu isku dayayaa inuu xalliyo. Waxaa kale oo jirta dad badan oo dukaano ku leh xaafadda, kuwaasoo doonaya inay caawiyaan kooxda isku raranka. Vijay aad ayuu u qiirooday arrintaas. Kadib tartankii xaafadda, waxay heleen fursad tartan caalami ah, balse dhibaatooyin ayaa soo ifbaxaya. Dadka ku nool xaafadaha isku raranka, gaar ahaan Don iyo saaxiibadiisa, ayaa maxkamad la soo taagay, waxaana hadda socda dhaqdhaqaaqyo lagu doonayo in xabsiga lagu geliyo. Vijay ayaa wuxuu tagay maxkamadda oo si toos ah ayuu la hadlay garsooraha.
Vijay wuxuu sheegay inaysan cadaalad ahayn in dadkaas lagu shaabaday inay yihiin dambiilayaal oo ay yihiin dad u halgamaya sidii ay u noolaan lahaayeen. Wuxuuna hubaa in dadkaas ay yihiin dad hawlkar ah, wuxuuna ka dalbanayaa garsooruhu inuu fursad siiyo oo u oggolaado inay gaadhaan awooddooda. Kooxdii waa la fasaxay, waxayna u bixi karaan tartanka iyagoo fursad u helaya nolol cusub. Sidoo kale Don ayaa nadiifiyay ficiladiisa, wuxuuna ugu dambeyntii ku soo noqday kooxda. Aad ayuuna u qiirooday, waxaana soo dhaweeyay tababare Vijay. Kooxdii uu macalinka kulliyadda ugu yeeri jiray kooxda isku raranka ayaa hadda noqotay koox run ah, waxayna leeyihiin mustaqbal ifaya oo hortooda. Waxaas oo dhan waxay ku dhaceen in hal nin uu rumaystay iyaga. Daawad haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like saar, ku soo biir channelka oo beedka subscribe dheh. Mahadsanid.